CIA in badan ayaa maqasheen hay'adda sirdoonka caalamiga ah ee CIA. Ku soo dhawaada macluumaad iyo xogo laga yaabo inaadan ka ogeyn. CIA Central Intelligence Agency waa hay'adda dowladda Mareykanka oo xil saaran soo ururinta macluumaadka sirdoonka iyo amniga caalamiga ah ee wadamada shisheeye. Hay'adda sirdoonka ayaa taariikhdeeda ahayd 1947 waxay ka soo baxday xafiiska adeegyada istiraatiijiyadda ee OSS dagaalkii labaad ee adduunka. OSS waxay door muhiim ah ka ciyaartay dadaallada Mareykanka ee lagula dagaalamay awoodaha axsaabta intii lagu guda jiray dagaalkaas iyo dagaalkii Qaboobaa ee xigay una dhexeeyay Mareykanka iyo Midowga Sofiyeeti. Dowladda Mareykanka waxay lahayd basaasyo ka shaqeeya danaha shisheeye sida cadawgeedu u adeegsado basaasnimo ka dhan ah, laakiin dowladihii ugu waaweynaa ee qaab-dhismeedka dowladeed ee howlgallada sirdoonka ayaa bilaabay dagaalkii labaad ee adduunka. Madaxweynihii Mareykanka Franklin Roosevelt lama siin macluumaad xasaasi ah oo ku saabsan Japan bilihii ka horreeyay markii Japan weerartay Pearl Harbor bishii Sebtembar 7, 1941. Waxaa sida aadka uga maqnaa waa hay'ad dhexe oo dowladda ka dhaxaysa oo lagu kala saari karo macluumaadka laga soo ururiyay basaasyo ka shaqeeya dalalka, kana baaraandega una sii gudbiya mas'uuliyiinta ay khusayso. Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, madaxweyne Franklin Roosevelt wuxuu aasaasay xafiiska adeegyada istiraatiijiyadda ee OSS oo hordhac u ah maanta CIA, waxaana u magacaabay qareenka New York iyo halyagii dagaalkii koowaad ee adduunka, General William Dufresne, inuu madax u noqdo hay'adda cusub. Amarka asalka ah ee OSS wuxuu ahaa ururinta falanqaynta macluumaad istiraatiiji ah oo loogu talagalay dagaalka. Gabagabadii dagaalkii labaad ee adduunka, madaxweyne Harry Truman oo xafiiska qabtay kadib dhimashadii Roosevelt, isagoona qiray baahida loo qabo isku dubarid sirdoon. Kadib wuxuu sameeyay amar fulin koox sirdoon dhexe ah iyo hay'adda sirdoonka qaranka oo labaduba qoray xubno muhiim ah oo hore uga tirsanaa OSS, wuxuuna tirtiray OSS isagoona dhahay ma jirto baahi loo qabo OSS. Sanad gudaheed, go'aankaasi wixii ka dambeeyay bilowgii dagaalkii Qaboobaa ee u dhexeeyay Mareykanka iyo Midowga Sofiyeeti, madaxweynaha cusub ayaa isbedelay. Iyadoo qaar badan oo ka mid ah hogaamiyaashii hore ee OSS ay weli gacanta ugu jiraan Washington, wuxuu marka hore aasaasay kooxda sirdoonka dhexe iyo hay'adda sirdoonka qaranka 1946. Kadib sanadkii 1947, Koongareesku wuxuu meelmariyay sharciga amniga qaranka, kaasoo horseeday sameynta Golaha Amniga Qaranka iyo CIA-da sida maanta loo yaqaano. CIA waxaa maamulo ka noqday tiro dad caan ah oo qabtay jagadan, oo ay ku jiraan kii ugu horreeyay Rosalynn Carter iyo madaxweynihii George W. Bush oo muddo 2 sano ah ka shaqeeyay, waana 1976 ilaa 77. Sanadkii 2004, Koongareesku wuxuu meelmariyay xeer dib u habeynta sirdoonka, kaasoo dib u habeeyay qaab-dhismeedka hoggaanka ee adeegyada sirdoonka oo dhammaantood ku xiran waaxda amniga gudaha iyo CIA-da, iyadoo laga duulayo booska cusub ee loo magacaabay agaasimaha qaranka. Sidaa daraaddeed, CIA-da hadda waxaa madax u ah agaasimaha CIA. Jagada agaasime ee CIA waxaa qabtay tiro dad ah oo ka mid yahay madaxweynihii ugu horreeyay ee Koongareeska Leon Panetta oo ahaa agaasimihii ugu horreeyay. Agaasimaha hadda jira waxaa lagu magacaabaa Gani Jerry Haspel. CIA waxaa loo habeeyay 4 agaasimayaal oo waaweyn: agaasinka sirdoonka, agaasinka howlaha, iyo agaasinka sayniska iyo tiknoolajiyadda, iyo agaasinka maamulka. Haddii fiidiyowgan waxuuna ka faa'iiday, fadlan nagu soo biir oo furo gambaleelka si aad uga mid noqoto daawadayaasha daawado barnaamijyada aanu soo gudbino.